وأدنى آذن الرئيس سومالي لان جود هان تودا ومدح ودا سارن maxaa ku dhacay sidee wax u jiraan maamada yaa soo salaamay muuqaalka idin kula wadaagi doonaa hayga degdegin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan oo walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen waa rajeenayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kulansiiyay isagay mahadaasi oo idin loo sugnaatay inta dhiban Allah ka dulqaado inta isugu toosantaan Allah u barakeeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaamna aan ku wada salino muuqaalkana noo share gare wixii tali tusaalaha qaybta commentiga ayaad igula wadaagi doontaa channelka dadka cusubtan ee subscribe isaar mahadsanidin aad iyo aad walaalayaal sida aad hordhaca barnaamijkaygaba ku soo aragteen maamadan halkan idinkaga muuqata waa de kulay qof Soomaali oo social media jooga oo aan garanaynin inuu jiro ma aaminsanayn waxa la socotaan Somaliland inay raadinaysay aqoonsi 35 sanadood buuq badan kadib ugu dambeyntii kaartooyin kala duwan baa loo digay marka shacabka reer Somaliland dhinacyo fara badan baa laga soo maray xaggan laascaanood waa laga soo maray oo waata xagga u go'day culimo fara badan waata u iftoodeen markay laascaanood lahayd anaga waa go'ena oo ma go'i kartaan Somaliland ay tiri waa tii loo iftooda la yiri adinku Soomaaliya waa ka go'aysiinay markii la idin diidayna xoog baa ku go'naa waa idin kale hadiiba idinku Soomaaliya aad diidaan in idinkana la idinka sii go'o maxaa diiday waa tii la yiri oo qaar kamid ah culimo diinkeena Soomaaliyeed arintaas aad iyo aad ay uga hadleen haddaad ogoleen Soomaaliya inaad la joogto oo tira Soomaaliya waa ka go'aya adigana ogolow in aan lagula joogin oo laga go'i karo buuqaas dheer kadib dhinacaas way go'day waqooyi bari Soomaaliya loo bixiyay maamul baa loo sameeyay doorasho galeen ayadoon la aqoonsan oo aqoonsi aanu dhicin baa waxa dhacday Xasan Sheekh Maxamuud inuu siyaasad ahaan halka ka dhaxarko maamulkan firdhiye madaxweynaha ka yahay asagoo ka dhaxarkay siyaasadiisa gaareed asagoo ka dhaxarka iyo ku xumeen uu ku xumeynayay Somaliland ayuu u aqoonsaday inuu yahay maamul kamid ah maamulada Soomaaliya ka jira Puntland raali kama aha Jubbaland raali kama aha Allahumma musta'an Somaliland sidoo kale raali kama aha waa la wada socotaan wax banaanka ayaa la waay ra'iisul wasaaraha afkiisa ka sheegay xagga markii lagu guuleystay oo taa ay go'dayna dabku hadda wuxuu ka shidan yahay oo laga soo shiday dhinaca kale gobolka Awdal ayaa haddana benziin iyo dabl isqabadsiiyay waadinka arkaya markii xaggan calankii yahuudda lagaga dibadbaxay oo meelaha la suurto la ordayay booramana waxa ka socday calankii Falastiin oo la dhahay anaga calankana namatala oo calankana anaga heysana meel kastaba lug baa lagu jiraa iyo gacan siyaasiyiinta Somaliland way fahmeen waxay yiraahdeen meeshii ay wax ka qayliyaanba Soomaaliya ku lug leh ayaan dhawata sheekh wixii ka dhacayay waa ogeydeen oo shacab masaakiin oo meesha degan oo iska dibadbaxay suldaankoodii laga xiray xabada inta lala dhacay qaar laga dilay siyaasiyiin fara badan oo reer Somaliland waxay yiraahdeen Soomaaliya ku lug leh marka sheekadii waxay noqotay taag inta waa isla fahanay waxa u soo laabanaynaa adna aadan magacyo kala duwan oo ayaa loo sameeyay mar la yiraahdo ilmahay iibsataa oo kaliya iyo waxaas kala baxda oo ay iibsataa mar la yiri diinta Kristanka ayay faafisaa mar la yiri niman gaalo cadaan bay la tumataa wuxuusan afku qofka bani aadamka soo qaban karin waxaan lagu sheegin malaha mar la yiri inay Kristan tahay ayada sheegatay waxyaalo kala duwan ayaa macnaha waxa weyn oo looga qaaday oo adna aadan lagu caayay adna aadan dabcan wax kale lagu macaayin aniga markaan fiiriyay waa ololahan ay u taagan tahay inay suuq geyso Somaliland inay tahay dawlad madax banaan oo ka go'an Soomaaliya inteeda kale suuq geentaas darteed in lagu aflagaadeeyo un ba halka iiga soo baxday marka si dhiib la u fiirsadee nahnu nahkumu ala dhawaahir wallahu yatawalla saraa'ir wixii ayada u qarsoon oo goonideeda oo anaga uu ku baalamanihin laakiin systemka guud ee anaga ayada aan ka aragno waxa waaye in ay tahay in ay Somaliland suuq geenayso oo adduunka ay ka gadayso luqado kala duwan adduunka ay kula hadlayso marka adna aadan halka mid ee lagaga aarsan karo ee la iskaga reebi karo ee macnaha waxa waaye looga guuleysan karo sirtaas maanta idin bixi doona ee bal marka hore ayadaan isla dhageysano everybody listening to my message has probably done geography and history and all you have to do is look it up and find out when Somaliland became independent because there are nations. Somalia, for instance, claims that Somaliland is part of Somalia when it fully knows
that Somaliland was never part of Somalia, where Somaliland was the firstborn and the most senior of the two partners, if there was ever a partnership that was legal between Somaliland and Somalia. وسوقين Somaliland بسوقين إسا مرة بقولجين بعناجا Somaliland Somalia ولجيت بكمان من نقون عناجا كهرين كذا الشهرين أي بس ما ده سياسيين فربنا Somaliland بهدرتان أنتوا عبد الرحمن عرة كم قنا إن ديانة اليهود شجعوا ده عناجا قدام فربنا وأفريكانا عناجا حرمة ده كهر قاضني ومعناها وحوين لا أقون صدي مركيد معناها وحوين إنجليز كنا جوميسنا هي دولة فربنا وأفريكانا والصومالي أي كم تهاي وسيدا أي شيء يعني مقتهي annaga xornimada ka hor qaadanay oo ka hor dhalanayba arintii way dabaheesaa marka inta loo soo daatay oo wax bani aadan afkiisa ka soo baxay eray aan loo adeegsan maamadaas ma jiro eray aan loo adeegsan maamada ma jiro waxay ka mid tahay haddana waftigii ama guddigii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsanaa kulankii ugu dambeeyay Djibouti ka dhacay way hogaaminaysay way ku jirtay marka aad bay u suuq geynaysaa Soomaaliland oo adduunka ayay saa uga gadaysaa kama hadlayo aniga diinteedana kama hadlayo wixii ayada u qarsoon laakiin anaga waxaan ka hadlaynaa waxa halkaas nooga muuqdo ee maamadaas 24 saac rag waaweyn oo odayaal ah oo qaarkood siyaasadda ku jira oo qaarkood aad moodin inay ganacsata yihiin qaarkood social media ku jira qaarkood aad markaad korka ka eegto qolofka kor aad ka eegto aad moodo nin rag oo macnaha waxa waaye de rijaal ah aad moodo ayaa maamadii dhan walba u jiiday hebel dhan walba uu ka jaba maqli jirtay dhan walba loo jiiday maamada oo loo aflagaaday oo loo caayay haddaba markaan isbarbar dhigno qofku markuu ra'yi la imaado oo wax suuq geenayo maxaa loo baahan yahay waa in waxba wax ka soo horjeedo ayaa la sameeyaa laakiin qofku markuu fikir la imaado ka soo horjeedada laga soo horjeedsanayo inay noqoto caay sax ma ahna qofkay sii fogeynaysaa qodobo fara badan baa jira oo Somaliland sii fogeeyay adduunka oo dhanna ka warqabo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo culimada adduunkuna ka warqabaan oo dubba uu sheegay oo idaacadaha caalamka ka sheegay waxyaalo fara badan baa jira oo qofka sii fogeynaya wardameer hadday ceel ku dhacdo koy baa lagu dayaa haye budget baa la soo helay tusaale ahaan shaqyar baa siinaa budget baa la soo helay budgetka markii la qaybiyo war qaybta ugu weyn bal Somaliland siiya dhiil baa la soo xiray dhiilkan kala barow qaybta ugu weyn bal Somaliland siiya qofka koy baa lagu dayaa laakiin markii inta laga qabto qofku waa bani aadan waa mid hadda sababtay in dambiishii yahuudda la hoosgeeyay adduunka dhan waa ka warqaba midaas waaya waxaan u soo laabanayaa marka shaxda quruxda badan ee aan doonayo inaan idinka dabageeyo adna aadan in la yiraahdo ilmay iibisaa oo niman cadaan iyo gaali ka iibisaa اللهم استعان إن اللي يرادو إن المي ديمي في دسا وديمي كريستنا أي أمد كل حفافسا إن اللي يرادو إن نظام كان قوملود لماذا وحاسي فافسا وحاسودن مركز أكتو تارجت كأي ماشي أسعته كما هو إيماني سو أما كمان بدلي كرتو لكن هل أرنو با جهاد اللي قلنا من كلام مامضة هل أرن با جهاد أي أسعته لو قل لي حين كريا واجهادي وحن أيضا السوق جينيسو أديكنا السوق جين فاينتا ayada Soomaaliland bay suuq geynaysaa Soomaa adiguna gobolada Soomaaliyeed in aysan kala maarmin oo Soomaaliya hal mid ay tahay suuqee oo cadeynta ay la timid adiguna la imo markii maqaarana la sameeyo marka oo isbarbarag la sameeyo waxa imaan doonto siyaasiyiin fara badan inay ku jahwareeri doonaan isbarbar dhigan suuq geyntan adna aadan iyo suuq geyntan adigana gobolada Soomaaliyeed in la isku hayo inay tahay xaq dastuuri ah oo Soomaaliya xaq u leedahay tan suuqii adna ta suuq bedelkaad adiga caay lahayd aflagaadin lahayd dhibaateen lahayd waxyaalo aysan inaad ku sheegi lahayd bedelkaad cirdigeedii ku xad gudbi lahayd siyaasad gadmi karta oo tan hadda ayada ay wada cagsigeeda ah kan oo caay aysan la socod automatically qofkii marka waxaad kaga guuleysan kartaa ugu yaraan inaad hoggaanka kala wareegto ugu yaraan jihadii uu haystay inaad ka leexiso oo fikirkan ayada ay waday oo Somaliland ay ku suuq geenaysay inaad tashwiish geliso ugu yaraan signal aad ku furto laakiin caay inaad aflagaadiso maamada da'da ah oo hooyada ah oo aan ognahay kumanaan arday Soomaaliyeed oo reer Somaliland ah inay wax u qabatay wax bartay iskuulaad u furtay aan ka warqabno in la caayo oo la yiraahdo waxyaalaha hadda kor aan ku soo sheegay oo ku soo celcelideedo aysan macnaba keenin in lagu aflagaadeeyo sax maaha inta masla garanay aad iyo aad
qodobka kale muhiimkoon idinla wadaagay waxa waaye cabdiraxmaan safaradiisii way u dhammaadeen yahuudda uu ku joogay waxyaalo fara badan oo qarsoon baa jira allahumma mustacaan hadalla soo baxbaxay waxyaalo badan oo qarsoon baa jira oo ay ka mid tahay nidaamkii muxuu ahaa siyaasaddii yahuudda horey u sheegtay ahayd Abraham Accord in Somaliland ay saxiixday inay diyaar u ahayd yahuudduna horey u sheegtay horjoogaha maamulka yahuudduna horey u sheegay inkastoo aan la shaacin laakiin dad fara badan oo siyaasiyiin u dhuundulaala arrimahan waxay boqolkiiba boqol hoosta ka xariiqeen maxay ahayd to nidaamkaas Abraham Accord-ka cabdiraxmaan ciro qodobadii ugu horreeyay oo laga siixanayay inay lambar 1 ka ahayd laakiin si official ah wali daah loogama qaadin tartiib waxman ayaga iska soo bixi doono basekan military wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland mar la wareystay si qeexan uma aanu sheegin wax hadda ciidan ma joogaan buu yiri laakiin waa laga marmaan in macnaha waxa weeyaan maxay to arrimaha amniga iyo iskaashiga dhanka ciidanka aan iska kaashanay anaga maamulka yahuudda marka fi qowlan waa iska soo bixi doona wax walba jiro hadda cabdiraxmaan waa loo diyaar garoobay calaamadii nimankii dhigiyacabka ahaa ee yahuudda meel kasta way ka taagan yihiin xataa wasaarad fara badan oo ay ka mid tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta meelahaas waa ka agdhow yahay calanka yahuudda iyo sawirkii horjoogaha maamulka yahuudda ee gacan dhiiglaha ahaa waxaasoo dhan waa magaaladii Hargeysa waa lagu wada xardhay soo dhaweyntii madaxweyne cabdiraxmaan ayaa hadda la sugaya loo diyaar garoobay soo dhaweyntiisa markay dhacday kadib cabdiraxmaan golihiisa wasiiradu la fariisan doonaa markuu la fariisto warbixintii iyo wuxuu kala soo kulmay halka intii la soo bandhigay maahane wixii kale qarsoonaa golaha wasiirada horteeda ayuu ka sheegi doonaa kulli xubnaha baarlamaankana waa la marin doonaa inay ansixin doonaan iyo in kale wallahu a'lam waa ka warsugi doonaa laakiin xaalad hadda halkaas ay maraysaa bidnah alkareem waxaan rajaynaynaa wax ummadda Soomaaliyeed ama reer Somaliland aan qalbada jibin oo dhibaato aan ku ahayn inuu cabdiraxmaan golaha wasiirada ka hor sheega markuu imaaday kadib ayaan rabbi weydiisanaynaa musiibada hadda ka taagan qaar kamid ah gobolada Soomaaliyeedna waxaan leen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda Soomaaliyeed dadka walaalaha ee islaanaya Ilaahay dhaxdooda burcad ha dhigo siyaasiyiin baa ummadan saa u gubaysa dadku isma nabcana Soomaali isma nabcana laakiin dad siyaasiyiin oo qowleysata ayaa dadka ka dhex shaqeysanaya rabbigan waxa weydiisanaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu dhaxdooda islaaxiyo burcadna isku mariyo nabadgelyada iyo amaanka buuxa ay haystaan ay ku soo caalamaalayeen shacabka reer Somaliland rabbigan waxna u weydiinaynaa inuu u sii adkeeyo inta aamiinda biidnillahi alkareem aad baan u mahadsantihiin marka wixii warbixino oo kale cabdiraxmaan ka soo kordho muuqaalada xiga ayaan ku wada wadaagi doonaa intaan isla sii gaari doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh